علي أو حسنة وحان وكوهر ليا أفكا بيشا إياك إيو شركة آن فديو وشيدديس وحان لا وراغاها كيمي قربح يميرش الصوقري بربرين هياك إنبا دو تشيدا وحكالي إما تشيدا كالفرلق وحان لا نقدا يلقويا سيدي كان عبالها intaa idiin dhaafi maayo aflagaado iyo wax kale idiin geysan mayno bilfadla naga daaya lugooyada waxna tarinana idin oran maayo laakiinse lugooyada iyo burburka aad hayaag marba ku soo dhex tuuraysaan naga daaya bilfadla waxaan leeyahay oo kale beesha hayaag dibad iyo gudaba hadday joogto shir degdega oo buuhood la ah isugu timaado waxbayna soo dhex galay aan isdaweyno cudurka iska saaree isu keenkeena magacayga awalan waxaa la yidhaahaa jaamac ismaaciil raygan naaraystaydana waxaa la yidhaahaa waran hayaag intaa markaan idhaahdo awalan waxaan salaamayaa salaan qalbiga ka soo godan ku salaamayaa dadka hayaag ee ka dhiidhiyey khilaafka iyo isku dhufashada qabiilka hayaag ee ka socota gudo iyo dibadba inay maanta ka arrinsadaan gartay waxgaradka odayaasha cuqaasha intaas ayaan salaamaya salaantaas kadib waxaan leeyahay khilaafkaasi wuxuu ka soo bilowday khilaafka warqadda aanaan weli hubin oo isimada qaarkood ay noo sheegeen in aanay shaqo ku lahayn inaanay maas meediya haddii isu marin waxba haddii khilaaf ku dhex jiro na ay khilaafkooda gudaha ku saxdaan oo aan tala bixin arkayey taasina taasay ahayd magaca hayaag unbaa guud ahaan ku saxdaan laakiin magacay kuma qorayn waxaa shaaca qaaday oo ku xigtay warqad dad fara badan ku qoran yihiin oo magac hayaa ku saxeexan laakiin qabiilka abokarka la yidhaahdaa ay yihiin dadka ku qoran waa in la caddeeyaa warka taas iyadaa kadib markii aanu dadkii waraysanay dibadda jiray iyo kuwii gudaha jiray ee meesha ku qoraa waxaanu ogaanay oo loo caddaatay in tiray fara ku tirs ahi ay ka been abuurteen dadka gudaha iyo kuwa dibaddaba ku xujinaya wiilasha fariinta warqadda internetka laga soo saaray ee 130 magac ku qoran yihiin soo diray wiilasha waxaan leenahay war dalka qaxoonti baad horta kaga tagteen Yurub iyo North America iyo Canada tagteen haddaad tagteenna dee hayaag inaad wax yeeshaan uma idaan tegin halka annagu maanaan moodin inaad u tagteen warqaddaa waxyeelada hayaaga aad soo qorteen boqorka idinku dee maydaan dhisanay dad qaxoonti ku maqan baad ahaydeen dadkii dhistay halkan u jooga hawd buu joogaa wuxuu u joogaa shaxdaa laga xukumaa dadkii dhistay ninka la dhisayo laba kale haddii ninka la dhisayana halkana laga xukumaa laga dhisi karaa meel kale lagama ridi karo haddii uu isagu xilka iska dhigo boqorku iyo xajin waayo xilka isagu raa iga hooya hayaagu halkan uu dhigayaa dibadda dhigi maayo haddii uu khalad la yimaado waa bashar iyo qofka ibni aadanka waa qaldamaayo cidda la xisaabtamaysaana waa annaga waa ciddii dhistay idinkuna dalka qaxoontaad kaga maqantii dee qaxoonti matala qabiilkoodii lama arage arrintaana qabiilkana ceeb bay u soo jiiday inaad qabiilkana ka xaalmarisaan boqor aad kalsooni kala noqon kartaana ma jirto waxaan qaba daa walba maydaan siinba dabaddaad iska jirtana qaxoontaada hayde dadkiisii waa joogaa kalamana noqon waa boqorkiisii haddii alla idmana wixii khilaafaada annagaa iska saxayna annaga ciddii nala saxaysee aqoon na dheeray noo kaala halka noogu kaalayo kaalay nala sax haddii khalad jiro soo sheeg oo noo kaala iyagana intaasaan kaga baxayaa warqaddaas waxba kama jiraan ninkii hore ay u maqlayo hadeerba maqal wax ka jiraan ma jiraan waa warqad la soo qoray weliba waxaan odhan karaa waa raas cidda soo qortay waa raas hayaa ka mid oo anigu raaskayga ah dee anigana la yeema sheegin boqorkan anaa wax ka doortay yaan odhan karaa weliba warqaddaasina sidaa weyn hayaagna waxaan leeyahay dib baa jirta siyaasad baa jirta siyaasadaha ina soo galay
hayaag meel kastaba ha joogo eegaag ha joogo marqaan ha joogo etoobiya ha joogo buuhoodla laga xukumaya ha isugu yimaado khilaafaadkiisa ha xallilo waxaanu halkaan u nimi saxaafadan aan u qabannay websaydadii baa ayaamaha naga waasha saxaafadda waan salaamayaa caaqila bokor ismaaciil cali cadmeed warqadahan midiyanka waaday ee bees ku hadlayso boqorka beel baa boqoratay in meel afkaysa saartay kama qaadi karto boqornimadiisa sidai raggii hore u hadleen hadalka raggii hore dhameeye waxay ku dhameeyeen dee waxaa liiya hadalka intii hore un baa waxweyn haddii aada loo badiya waa lagu tuntaay raggii horea dhameeyey boqorka beel baa boqoratay caleemaa saaratay isugu timi muddo ka shiraysay in website wax ku soo qorta kama qaadi karto